وحساب بحي applicationno khatar ah oo qofkii isagoo gurigiisa fadhiyo u leeyahay lacagan ku helaya applicationka oo sidii qamaarka loogu cayaaray waa duruqda khaldan oo ilaahay uu kugu caroonayo wax markaad wax raadinaysid dariiq sharciya ku raadi waxa kamid applicationada hadda soo baxay one speedka midka loo yaqaan oo dhalinyaranadii shaqo la'aan ka wada dhigay oo qof walba gidaarka intuu la fariisto darbiga la fariisto one speedka waa qamaar la casriyeeyay diyaaradu maanta oo dhan haatinahay mar gaariyo ordisiinahay marba waxbuu samaynahay lacag uu dhiganahay mar asaa laga dilanahay marna asaa wax dilanahay waa xaraan watii nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu lahaa fattaquu llaha waajmiluu fi dalab war ilaahay ka baqa meesha aad wax ka raadinaysaan meesha aad wax ka raadinaysaan ka fiirsada meesha aad wax ka raadinaysaan ka fiirsada qimaarka qur'aanka ilaahay ku xarimay inama alkhamru walmaysiru waalansaabu والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الميسر وحن هذا application كان لسودك دكسنا أيه وان سبيد لو يقانه وقمارك إلهي ميسر وكتل مامي لعقتي مرة دي اللي قاعد شو وقمارك عادي السوقية عادي اللي عياري جري وابليكيشن لو بدلوي قابل إلكتروني اللي بدلوي waxaa ka mid ah sayji-on barnaamijkan hadda la yidhaaho oo hadda dad badan isaguna ay ku daateen sayji-on stain barnaamijkan la yidhaaho oo isagana hadda la soo degsanayo dadka qaar waxay leeyihiin waa ganacsi maxaa loo xarimaya waa ganacsi war ganacsi ma aha xoolihiinna yaan lagu dhicin xoolihiinna yaan lagu dhicin waad ogeydeen inta application oo Soomaali xoolahoodii lagu dhacay oo ilaa hadda dadka qaarkood ay farta qaniinayaan herbaadiyaha qaar geeli soo gatay geeli soo gatay forex xagee ka baxday xagee ku dambeysay xagee ka baxday forex war meesha aad irsaaqada ka raadinayso ilaaha ku barakeynaya dariiq saxan hadduu yahay meeshan waxa inta la joogayo oo wax iska yar qaar waxay ku leeyihiin sayji onkan waa ganacsi war ganacsi ma aha ganacsi hadduu yahay meel horta wuxuu leeyahay diboosti ah diboostigaas waxa weeye waaba xaaraan qaybta dhowr option uu hortaada soo dhigahay qaybta diboostiga uu ku leeyahay waa lacag dhigasho faa'iido lagu dul saarayo lacagtii meesha aad dhigatay waa ribo cadow xaaraan qaybahan kale ama funaanadaha lagu soo dirayo ama mobilka lagu soo dirayo oo lagu leeyahay iibso ama maaragtay order isticmaal maalintii 5 goor ama 20 ama 50 goor oo dhor samee ka bacdi waxa ku fuulaya commissiona ku fuulay $4 $5 waxba ku fuulaya leeyahay wuxuu haday beec yihiin ma lagu fasaxo funaanadan cidda doonto aad ka iibsatay ma la fasaxayo process iyagu ay ku jeexanay waxay ku leeyihiin halka orderka ku dhufo qoladaas marka tus funaanad qolo kale uu ka dhacahay war waxaan hadda soo iibsato dariiq sharciya uu yahay ciddaad rabto la wadaag ka sii iibso ciddaad rabto la wadaag oo ka sii iibso laakiin ma ahna waa application silsilad degsan qof uu remote-ka hoos uga hayo xukumayo oo hal meel inaad u dirto mooyee ama hal qolo iyagu ay ku amraan inaad u dirto mooyee funaanad ama mobile ciddaad doonto aad ka iibsan karto ma aha qaar waxay ku leeyihiin waa maalgashi maxaa loo diidaa suuq weyn oo Alibaba iyo Leyraa'i waxay ku sheegayeen ayaa lagu maalgelinayaa lagu leeyahay war hadduu maalgashi yahay qiraada sharci qiraad sharciyana ma ah qiraad sharciga waxa lagu yaqaanaa inay faa'iidana jirto khasaarana jirto barnaamijkan yaani optionskiisa kamid ma aha wax khasaara ah wax khasaara ma laha mar walba uu faa'iido iska socota haddii uu yahay qiraad uu yahay loss muxuu u jiri waayay minus muxuu u jiri waayay ma jiro ganacsi ma ah qiraadna ma ah ogaadana waad ogaan doontaan qofkii uu noolaada meeshii forex uu ka baxay uu ka bixi doonaa war Soomaaliya hantidiina ayaa la idinku sirin mar walbaba wax cusub oo application cusub
ayaa laydiin soo saaraa markaasaad geeliinna u soo iibsataan mar walbaba oo qaar guryahooda ay u iibiyaan mar walbaba war risqiga ilaahay dalab laakiin dariiq saxan ku raadso irsaaqadda ilaahay